وسين احترام سودو ناك أضق وفريد وعقلي يدك صعوتها وإسكو كلصون وأضق يا على مدى لو قرتن كل شيء وناك عن ناقة بدن كحرنين حتى يكون حران تاينا ضد ير وسيدة وفكرية ونلوش هدف كله maaha kuwa inta iswacaan haddana saaxiib iyagoo isla ah haddana isxanta inta badan dumarku waxay u badan yihiin meeshay saddex ku noqdaan marba ta maqan baa la xantaa waa naag keligeed socota sida galaydhka kalsoonida libaaxa leh waa labada xayawaanan jeclahay waa naag danteeda uun ku taxalluqday hadday iskuul aadayso hadday shaqaynayso hadday ilmaheeda hadday ubad leedahay meeshii ay ka dareento inaan wanaag ka soo soconna dib uga gurata keligeed saaxiibsla ah aan qofna u nacablayn yaa dadka u nacamleeya kis aas baa la yidhaahdaa maraykanka waa dadka nacamleeyaan caqligooda hadlin ها ونركي واساس قفكلو كدبا يس تا كدبا هيا لكن عقليسي يا aragtidiisi maaha waa futadhun kada la yiraahdo macni dad buu daba naageynaya waa position aad u xun qofku inuu aragtidiisa hadla naagtaas hadaa tahay danaheeda ku mashquulsan caqligeeda hadasha saaxiibo badan lahayn danaynayn in la jeclaadiyo in la naco kala jeclayn horumar bad gaarisa wayo shakhsiyad waxaad leedahay qaninimadu maaha lacag adigoo lacag haysta ayaad shakhsiyad raqiisa yeelan kartaa shakhsiyad qaaliya oo expensive oo quality oo unique hadaa tahay naagta noocaasa bad leedahay gabadh Soomaaliyeedna iyadu inay wanaajiso kor qaado mooyaane hadday dhiban tahay hadday wuxuu qaban kartaan wuxuu qabato haddii kalena aan ku joogsan oo ku digan dad aragtid naag ugu mana sheeganaysa gabadh kale berigaa saahay saasaan ku samaynay saas kacar naagta shakhsiyadda qaaliga ah leeyahay dadka waxa ay wuxuu qabato kuma digato xataa hadday xumeeyaan mana sheegato marka wixii intaa ka soo hadha waa dad raqiisa la iska ilaaliyaanay badan yihiin naagtaa haddaa tahay ma kala jeclaanaysid siday bilaadanku u arkaan shaqadaada maba ahaba sidaad isu aragtid ayuunbaa muhiim ah daawade inaad ka fikirtid sida lagu arko waa daciifnimo meeshii ugu hooseysay bilaadan ma qancin kartid maalintaad isku tiraahdid qanci dantaada ayaad luskaraysay shakhsiyadaadana waad luskaraysay waana daciifnimo meeshii ugu dambeysay marka adiga ahaw horena u soco cidna ha dhibaatayn